You've got the best players on the pit on the habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan bal caawiyo habeen kala weyn Manchester City vs Liverpool waa habeenka Anfield mar kaleba halkan la isugu imaanaya Guardiola kooxda aad ka dhibtay waa Liverpool waa kooxda ugu yaraan 10 ciyaar uu ku horimaaday oo uu ku dhibaatoonay ama guulaha ugu yar ka gaaro Jordan Klopp iyo Guardiola ayaa isgacan qaadi doona wariya Bebo Klopp halka kugu sugaya miyaadan u jeedin Klopp wariya Bebo miyaadan Klopp u jeedin Klopp xaqiisa aadaya hadda isqabanaya labada nin Guardiola ninka ugu badan ee guuldara ka soo gaartay waa Jordan Klopp waa tababaraha guuldarada ugu badan ka soo gaartay weeyaan tartamadoo dhan 8 jeer ayaa Guardiola la garaacay oo guuldara ka soo gaartay ninka kan ee lagu magacaabo Jordan Klopp balse Manchester City ayaa adkaaneysay dhammaan ciyaarihii ugu dambeeyay oo ay labada kanu ay ciyaareen runtiyo yaani ma taqaana Manchester City iyo Liverpool tartamadoo dhan todobadii ciyaar ugu dambeeyay City ayaa ahayd kooxda guulaha ugu badan gaartay Liverpool hal ciyaar bay adkaatay Man City 3 ciyaarood laba jeer barajaba la galay marka waa labadii dhinac ee ayaantan iyo sanadii ugu dambeeyay Premier League isku hayay ayaa ciyaaraya Anfield runtii caawa aad iyo aad buu shidan yahay waan sugnaa caawa Arsenal shaliba la sii laaday mar kale oo Maxamed Salah baa ciyaaraya Maxamed afkore goolka meel fiican baa loo dhigay Manchester wow 1-0 Liverpool waa gaartay goolka habeenka ciyaarta hal mar bay ku dilayaan oo ay fursad ku weeraan ciyaarta Jordan Klopp baa ku dabaaldegaya Anfield marka ay Mane iyo Salah ay goolka hortaagan yihiin way adag tahay in aad habeenku ku ciyaarto City ugu dambeeyay waa la gaaray goolkeeda waa taan kula habeenku maqaar la ciyaaro wuxuu matarayo hogaanku Liverpool ba habeenku qabatay Sadio Mane ayaana ku shubay habeenku hadii Liverpool habeenka ku adkaato Liverpool waxay cadeynaysaa sanadka inuu yahay sanadkeedii kooxda horyaalku qaadaysa habeenka ceenkan oo kala bay badisaa hogaankeeda bay si xajistaan still waa kooxda aan wali laga badin Maxamed baa meel dhigay halka buu u dhigay Mane bay sameeyaan Jesus Gabriel meel fiican oh Foden wow 1-1 Manchester City back way soo laabatay City waa wax kale ha kulanka kanu hal gool marna ma celin karayo hal lama noqon karayo iyagu waa Manchester City walla way soo laabteen wiilkan Foden still garoonka uu jecel yahay sanadkii horena saaruq buu ka dhaliyay marka koowaad Foden maxaa la yiraahdaa Bernardo kadib De Bruyne ha qabsado Jesus bariya si fiican buu ciyaaray Allah isla wareystay halka uu dhigay lug bidxad weeyaane Allah saaruq buu ahaa Loris Sani waa hadda ka hor sidoo kale ugu dhaliyay gool waana sanad wax kale wow absolutely goal Liverpool laba goal Manchester City goal waa goal laafay Eva markidood mid noocayo kala ah Maxamed Salah kooxdan waa jecliyay gabiyahanba wana markii shanaad oo halkan gool kaga dhalinayo wana habeenku caawiyo goolka Allah ilaahayo hadaad gambarka ugu fadhin karto goolka ayaa waa gool cimaamadiisa aanu marna la haysan karin waa waraysi cad uu habeenku Allah ilaahay buu ku macdinayaayo waa kan meel fiican dhigay ciyaartoyga Liverpool Jones intuu 2-3 isla wareystay buu soo dhaafay markaaba halka loo dhaafay midigtuuna ku dhaliyay Allah ilaahay amarkii gool buu ahaa Foden haya flip oh Kyle oh De Bruyne Beb waa dabaaldegaya 4 gool fantastic habeenku waa waranayna maqaalkana waa la yaaqay City waa wax kale hadday Liverpool hogaamiso City waa soo laabanaysay hadday mar kale hogaamiyaana City waa soo laabanaysay still 10 daqiiqo haysanaa wali riwaayad baa soconaysa waa labada kooxood aan ugu jecelnahay EPL-ka waa labada koox markay ciyaarayso garansi ay tahay Liverpool vs Manchester City equal goal weeyaan xitaa maatib waa celi kari waayo gool haya Alisson Ali Waraabay baa u orday markaa buu goolka halka ka galay saaruq buu ahaa Kevin Yaqay De Bruyne Yaqay habeenku waa maqaar baan nagu waalayaan labada kooxood ma sahlana mucaaradka waa reer Chelsea iyo reer Liverpool United labadan